السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام أصحابي أدبن إذن سلام يا مارو الدنيا كجوكتان أحيي للآية هاي قلب ونكسن جمعة ونكسن إنساء يقول برتين وحارو إيمانتي إن أنا كهلا يبه دويد ما شاء الله إن بحلو يقانو عذرة سيدا عافماتي أيان كشيكين جيرني أما أن كشيكين جيرني أو 10 كمدة maanta waxaa doonayaa ilaahay hadduu idmo insha allahu inaan yaro soo koobo aan ka hadlo mid ka mid ah caafimaadka loo yaqaano cudurka asaga ah ama cudur inaan ka hadlo ayaan doonayaa cudurkaas loo yaqaano Brucella. horta Brucella muxuu yahay ayaan baran doonaa dan waxaan baran doonaa maxaa loo kala qaadi karayaa maxaa sababi karayaa taas ayaan ogaan doonaa ilaahay hadduu idmo marka asxaab waxaan idinka rabaa like iyo share iyo dhiirigelinta waa xaqiina waxaan ahay qof isku daya mar walbo in kulay aqoontiisa usoo bandhigo dadweynaha Soomaaliyeed meel dunida ay ka joogaan marka tan waa igu dhiirigelin inaa igu dhiirigelisaan ayaan niga codsanayaa insha Allah marka waxaad ku soo dhawaataan ashirka asagoo faahfaahsan ee baadu insha Allah isku soo noqod wanaagsan marka Brucella waa maxay Brucella ayaan fahmi doonaa Brucella muxuu yahay asaga macnihiisa muxuu ku saabsan yahay Brucella waxaan ogaanaynaa Brucella wuxuu yahay Brucella maxaa sababa Brucella waxaa sababi kara Brucella waxa loo yaqaano bacteria sababta bacteriadaas ayaa qofku markaas ku dhalan karaysa calooshiisa dan qofku wuxuu qaadi karayaa sida loo yaqaano Brucella marka Brucella asaga seel uu kala qaadi karaa qofkaas uu soo gudbi karaa xaguuna ugu imaan karaa waxaan insha Allah halkan ayaan ka ogaan doonaa Brucella waxa la isku gudbiyaa sida markaas transmissionka looga cadeeyay ama horan looga sheegayba ama dadyaabo caafimaadka khuseeya say u garanayaanba Brucella wixii soo ama aan la isku gudbiyo waxa kamid ah eating or ama drinking contaminated meat and milk يعني waxaa waxyaalaha contaminate-ka ah oo wasakhda ah oo sidoo kale cuntada caanaha oo kale ay contaminate ay tahay haday tahay markaas cuntadii maxay ahayd hilibka oo kale contaminate haduu yahay cudurkaasi saas ayuu qofku u gudbi karayaa transmissionkiisa okay marka caanihi soo saaritaankiisa haduu yahay mid markaas aan saxnayn oo markaas sida loogu talgalay aysan ahayn qofka haduu isticmaalo oo ama oo joogtay asagoo caanaas oo contaminate leh dan waxa uu iman kara cudurkan asagoo markaasi halistiisa wato ayaa markaas qofkani oo asiibi karaya okay waxaan oo soo haray maxaa waaye waxaan oo soo haray sida la isku qofka sida oo lagu garto Brucella haduu leeyahay Brucella haduu qofku uu qabo maxaa lagu garan karaa Brucella qofka haduu qabo waxa lagu kala garan karayaa qofka wuxuu sameynayaa qandho ayuu dareemayaa okay horta qandhada macnaheedu waxa waaye sign of disease la cudur walba horta astaana u tahay qofka bini'aadanka hadii farta laga qabto run ahaantii wuxuu dareemayaa qandho zaid ayuu dareemayaa ama qandho dareemayaa marka si aad qandhadaasi waa normally qof walba ama cudur walba astaan bay u tahay sign of disease la qandhadii aan ku gudubno marka qofku wuxuu dareemi karaa headache madax xanuun ayuu dareemi karaa qofka madaxii ayaa zaid u xanuun karayo madaxii ayaa xanuunaya qofka mideeda kale waxa qofka saameyn ku iman karaysa joint pain yani kalbaxyaashi ayaa xanuun karo horta kalbaxyaashi maxaa loo garan jiray kooga hore sida ogtiina malaria waa keeni karaysa cudur walba hada cudurada kamid ah oo kan oo kale uu keeni karaa hadii qofka heeyo inuu markaas dad waxa arkaysa dad yowga bini'aadam ay ku leeyeen ana kalbaxyaashi xanuunaya malaria iskaga shakasanaay no saas ma ahan qofku waa inuu dhakhtar la kaashta dhakhtar inuu u taga asaga wax ma soo barnin dhakhtarka ayaa wax soo bartay marka dadiyowgaas ayaa iska jiro marka waxaan kula talin lahaa dhakhtarkii inay u tagaan ay ku kalsoonaadaan maxaa yeelay dhakhtarkan ayaa juhdi soo bixiyay juhdigaas ayaa markaasi waxyaabo fara badan hoolihiisa fara waqtigiisa ayuu lumiyay 4 years ama in ka badan ayuu jaamacad fadhiyay soo dadkiisa wax uu qabto oo aqoontiisa markaasi ay u ziyaado taas ayuu markaasi ugu talgalay marka waxa kale loo kala garan karaa yani korko idil ayaa markaas qofkii xanuun uu ku dareemayaa korko idil ayaa xanuun ka dareemayaa qofka asaga ah
sida markaas lugihii dhan oo markaas boodidii dhan xanuunayso. kadib wuxuu dareemayaa qarqaryo ayuu dareemayaa qofka asaga ah. waxaa imaanaysa miisaankiis inuu hoos u dhaco, waxaa imaanaysa qandhi zaaid inuu qofka qabto iyo dhidid inuu ka imaado qofka asaga ah. marka cashirkeena maanta halkaas ayaan ku joojin doonaa insha allah. wixii management ama treatment iyo prevention sida looga hortagi lahaa gadaal dambe ayaan markaasi aan kasoo sheegi doonaa. aad ayaa idin salaama asxaabay. marka waxaan idinka codsanaa inaad sheegaraysaan sida ay dhiirigelin ay ugu noqoto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.